nolosha aadanaha waa mid imtixaan ah, taasi oo marba heer taagan. Cimraan Maxamed waa gabar da'yar, isla markaana sida aad u jeedaan ah, dhibane oo dhinaceeda dhulka yaallo, taasi oo muddo sannad ah la ildarneed buro kaga taallo kalida, iyadoona sii weynaanayso una baahan wax ka qabasho degdeg ah si nolosheeda loo badbaadiyo. Aabe Maxamed Maxamed Cumar iyo hooyo Seynab Xuseen waa waalidiinta Cimraan, waana qoys reer guuraa oo danyar ah, kuna nool miyiga degmada Beled Xaawo. Cimraan oo ah gabadhooda ayay u soo qaadeen magaalada si ay daawo ugu helaan, balse goobihii caafimaad ee ay geeyeen kadib waxay ku wargeliyeen in xaaladdeeda aan waxba laga qaban karin, ayna u baahan tahay in loo qaado Muqdisho ama dalka dibaddiisa si xaaladdeeda caafimaad wax looga qabto. Hase yeeshee, qoyska dhibane Cimraan Yariisey waa qoys danyar ah, isla markaana aan awoodin daaweynta gabadhooda, maadaama dunyadoodii ay dhaafisay abaaraha isdaba joogay ee ka jiray waddanka. Waxaana ay muslimiinta iyo cid allaale ciddii codkooda uu gaaro ay ka codsadeen in ay u caawiyaan si ay ku jirto walaalnimo intaba. Baa waalidkeed ahay, haddee muddo sanad bay naga xanuunsan tahay, baadi baan ka keennay. Waxaan rabnaa walaalayaasha muslimiinta meel walba joogta inay nala caawiyaan baan rabnaa. isbitaal aad geyseen ma jiro? Isbitaal Balaxaawi Madeera waan geeyey, haddam xamar baa loo qaadana leeyahay. Gabadhan in wax loo qabto oo Muqdisho la geeyo oo qarashkeeda laga bixiyo ma awoodi weysin? Waa awoodi weyne, abaar baa lagu jiraa, xoolo ma qabno oo hantidayna waa 10 koor neef oo ari. haddee waxaan rabnaa in la caawiyo walaalayaashan ay caawiyaan baan u baahan muslimiinta, inay walaalayaashan nala caawiyaan baan rabnaa muslimiinta meel walba joogta. xaggee ka keenteen gabadhan ay ku nooleed? baadiyo ka baadiyaan ka keenay. muddo intee la eegay idinku xanuunsanay? sanad bay nagu xanuunsanay. waxaa la yiraahdaa Maxamed Maxamed Cumar. gabadha aabaheed yaan ahay, dadkan Ilaahay baa ku keenay. waxaan doonaynaa meel kasta oo ay ku sugan yihiinba ummadda walaalaha dhibkaas tabarna uma hayo in la ila qaato oo nin walba oo muslim Ilaahay dartii wuxuu ku awood ku qaato. meeqa sano gabadhan xanuunsanay? gabadhan waxay asana xanuunkan waa qabtaa ilaa muddo 4 bilood hadda ku soo weynaa dadka soo kala. wax isbitaal aad geyseen ma jiro? isbitaal Balaxaawo iyo Madeera labadaba aan soo marinay, waraaqadahan baan noola soo qoray. Ilaahay waa ku roon yahay, hadda qaas baa u soo baxday qaleeyo. waxaan tabar iyo talo u haynana ma aha, ummadda islaamka inaan u soo bandhigno ayaa soo baxday. haddii xaalka jiro waa sidaas iyo nabadgelyo. Waxaa xusid mudan daawaday in waalidiinta Cimraan ay dulsaar ku yihiin waqti xaadirkan eheladooda oo degan magaalada, ayna yihiin dad ay ka muuqato diif aad u daran oo ay u sii dheer tahay walwalka iyo waxyarowga isugu darsamay ee ku aadan gabadhooda. Fadlan walaal, haddii uu ku soo gaaray muuqaalkan, aan caawino walaashan Cimraan iyo qoyska Aabe Maxamed Maxamed Cumar oo inooga baahan caawinaad bani aadanimo, mid muslimnimo iyo mid walaalnimo intaba.